السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتي القالية سو دواذا aad baa inii salaamay maanta waxaan karsanaa bariis yar oo aad u qurux badan iyo chicken kiisa marka bariiskan hor karinaa saliidaan ku soo shubtay bariiskan hor karsanaa xabiibayaal soo dhawaada aad baa inii salaamay haddii reer ku tahayna aroor wanaagsan haddii galab ku tahayna galab wanaagsan hadda saliida waan ku shubay sashaan ku soo shubtay haddana saliidan xoogaa yar diiriyay basashaan ku soo shubtay bariis yar aad u fudud baan karsanaa oo cad aan caseen oo qurux badan waxaan ku darayaa xawaashi isku jiraan ku daray xawaashka doonta aad ugu isticmaal kamsar iyo toon isticmaal anigu laakiin xawaashida isku jira bis ku karnayaa waxyaro saliidana waan ku shubay waxyaro saliid iyo wax yar oo subag isku jira aan isku shubay baan ka horeysiiyay basashaan ku shubay xawaashkan ku shubay waan isku walwalaaqay kana bariiska anoo ku shubay asxaabay aad baa inii soo dhaweynayaa soo dhawaada channelku waa channelkiini anigu waa walaashin Saada Cooking waxaan ku soo daray bariiskii haddana biyo ii kulul oo ii karkarayaan soo karkarsaday meel halkeer ii yaalan gab ku siiyay biyo ii karkareen awalba waan ku shubay oo kaliya haddaan fiidiyowga dheereeyay cidna ma rabto marka fiidiyowga waan iska soo gaagaabiyaa biyaha karkarsada chickenkiina waa kaas bariiskiina saas inoogu dhamaaday chickenka hadda karsananaa maanta waxaan karsananaa lugo bes lugo waxaa la yiri lugaha wax ka macaan ma jiraan baa la yiri marka maanta waxaan karsananaa lugahaas waa 6 midh baa u maleynayaa lugahaas maanta ka soo tuuranaynaa digaag aad u yar weeye ilmo yar weeye marka barifka baa ku dhagsan oo isdul saaran yihiin laakiin biyaha markaan soo karkarinayaa markaan soo karkariyay iska kala fufay waa kuwana waan karkariyay biyo karkar tabkaan saaray waan karkariyay xabad toon aan ku dhex daray maba inay soo iska ilaaway toon baan ku daray milix baan ku daray waa kuwaas waan karkariyay haddana waxaan soo qasay asxaabey waxa weeye bur xawaashi isku jira maraq jubel hindhanaan beer baan ku daray waan isku qooshay marka waxaan rabaa inaan ku dhaxeen qaso chickenka ku dhaxeen hagaajsanana chickenka marka hore burkaas aad ka horeysiinaysaa oo soo qaasa burkaas ugu duugaysaa soo dhan wada burka ka horeysiinaysaa waxaad ku dhexridaysaa wixii yar aad qostay qaski yar isku dardartay oo xitaa color ku darsatay ku dhex duugaysaa si uu qurux badnaado dawaynada soo karkarinay qurux muusan lahayn marka qurux baan yeelanaa markaad miiska saartay soo aad ugu qurux badnaado inta yar isku qas wax yar oo buro soo qaad xawaashi ku dar liindhanaan ku darso sida ugu duug burka ka horeysiin marka hore burka waa inaad ka horeysid burka markaad bur dhex gelisid bur baad dhinaca geeska soo dhiganaysaa burkaad horgelinaysaa ka bacdina waxaad qastay saa ugu duugaysaa aniga kaasaan ku soo duugay kulligiis aan ku soo duugayaa watana haddana way dubanaynaa
waan kusoo duugay cabaar yar baan daayay haddana waan dubinaynaa oo kaasa saliidaan kusoo guray insha Allah marba dhinaca u roga si qurux badan buu u soo baxayaa insha Allah bilkariim dhinacu ka casaada maahan dhinaca kale u rog kaasa hadda ka soo tuuro aad buu fudud yahay waqtiga ka qaadan maayo ku tuuro insha Allah bilkariim tan cuntadeeni saasay inoo soo baxday chibista inuu wada tusinba chibis hore u soo garay channelkayga ku jirta qofkii raba cuntadeena maanta saas ku soo baxday watana macal juice kaayar juice ko inii soo gelinaya insha Allah bilkariim saana maanta inoo soo baxay chickenkii iyo bariiskii inii soo gelin doonaa juice ka hadduu alla idmo asxaabe gaar bay maalin gaar inii soo gelinayaa laakiin hadda ma inii soo gelin marka waxaan leeyahay Ramadaan kariim maanta waa maalintii afraad ba u maleynayaan soono Ramadaan kariim watana inta saas inoo soo baxay bariiska chickenka oo min ka rabnay waxa kale anaa ku dardarsaday kaasa sida quruxda badan oo soo baxay waqtina ma ka qaadanaya waqti uu ka qaadanaya ma jirto daqiiqad bad ku diyaarinaysaa dabka inta dul taagnaanaysa wax badan ma aha chickenka biyaha ku dhex ridinaysa oo karkarinaysa waa kaas asxaabey soo dhawaad aad bay ni soo dhaweynaya